dawladda Soomaaliya iyo bahwadaagta caalamiga ah waxa ay si wada jir ah uga shaqaynayaan sida ay ugu suurtagelin lahaayeen dhammaan muwaadiniinta inay ku noolaadaan kuna naaloodaan nabad iyo in khilaafyada lagu xalliyo siyaasad halkii ay xal ku raadin lahaayeen colaad. Ujeedada ayaa ah in Soomaaliya gacan laga siiyo inay yeelato hay'ado iyadoo ay leedahay si aysan si weyn ugu tiirsanaanin taageerada wadamada kale. balse waxaa hubaal ah in aad isweydiinaysid sidee ayay tani ku shaqayn kartaa. hagaag waxaan idiin sharaxi doonaa habka dhammaystiran ee loo wajahayo amniga. amniga ma ahan oo kaliya inaad leedahay ciidamo military iyo boolis shaqaynaya. habka dhammaystiran waxa uu ka dhigan yahay in wax laga qabto waxyaabaha horseeda khilaafka, dhisidda kalsoonida iyada oo la dhisayo hay'adaha iyo hannaanka cadaaladda iyo ku dhaqanka sharciga, xoojinta maamulka sharciga ah iyo ka hortagga in dhalinyarada ay qaataan xagjirnimada. hoggaanka Soomaaliyeed oo taageero ka helaya bahwadaagta caalamiga ah ayaa waxa ay ka shaqaynayaan inay amniga Soomaaliya ku xoojiyaan 5 arrimood. tan ugu horeysa ayaa ah in awood la siiyo howlgallada AMISOM si ay u wadato una gudato waajibaadkeeda ilaa inta laamaha ammaanka ee waddanka Soomaaliya ay si buuxda ugu diyaar garoobayaan in ay la wareegaan waajibaadka amni. tan labaad ayaa ah in la dardargeliyo horumarinta hay'adaha amniga ee waddanka Soomaaliya si ay u noqdaan kuwo awood leh lala xisaabtami karo ayna ogol yihiin bulshada ay u adeegayaan isla markaana qarashaadkooda la dabooli karo. midda saddexaad waa in la dhiso lana abuuro kalsooni ay dadka ku qabaan maamulada iyo in bulshada laga saacido in ay ka soo kabsadaan colaadaha iyada oo loo marayo dib u soo kabsashada dhinaca dhaqaalaha iyo dib u heshiisiin iyo in ay helaan boolis iyo cadaalad. tan afraad waa in laga hortago lalana dagaalamo xagjirnimada iyada oo xal siyaasadeed loo raadinayo dhibaatooyinka halkii loo mari lahaa colaad oo ay ka mid tahay in lala shaqeeyo qaybaha waxbarashada iyo culimada diinka si looga soo horjeesto xagjiraynta. tan shanaad oo ah tan ugu dambaysa waa in taageerada ay fidinayaan bahwadaagta caalamiga ah laga dhigo mid wax ku ool ah, abaabulan isla markaana daahfuran. qof walba oo Soomaali ah waxa uu mudan yahay inuu ku noolaado nabad iyo amni. habka dhammaystiran ee loo wajahaya amniga waxa uu gacan ka geysan doonaa in laga dhabeeyo hiigsiga ah in Soomaaliya laga dhigo meel nabad ah oo ammaan ah.